Kusoo dhawaada video toddobaad oo aan ka sameynay barbarooniga. Video waxaa ugu magac darnay beeraha barbarooniga waqti hore ka qabo dhibka whiteflies-ka cayayaanka la yiraahdo whiteflies-ka oo aad u dhiba beeraha barbarooniga sida uga qaba lahayd dabcan qudaaraha kalena wuu dhibaa. Haddii aad banaanka wax ku abuuraysid ama greenhouse isticmaalaysid cayayaankan aad ayuu u dhib badan yahay. Haddii aadan marka waqti hore aadan control saarin oodan iska xakamayn wuxuu keeni karaa in wax soo saarkaagii oo dhan oo xilligaas aad soo saari lahayd inuu ka kac noqdo oodan waxba ka soo helin. Marka videoga waxaan uga hadli doonaa kaartooyinka qaar oo aad isaga controli kartid oo isaga ilaali kartid cayayaankan si dalag fiican oo barbarooniga oo tayo leh iyo qudaaro kale oo la mid ah haddii aad soo saaraysid sida u isticmaali lahayd fikradahaas ayaan rabnaa inaan kula wadaago halkan. Marka fadlan sii dhageyso. Waxaa jira laakiin noocyo badan oo kala duwan oo whiteflies-ka la yiraahdo cayayaankan, laakiin midka adultiga ah oo whiteflies-ka ah jirjiricsan ayuu leeyahay iyo baallo. Waxay sameeyaan marka dhibaatada ay geedka u geystaan waa inay intay ku mudaan afkooda geedkii ay ka dhuuqaan nafaqadii inay ka dhuuqaan. Nafaqadii iyo dabcan biyihii la socday markii geedka ay ka dhuuqaan waxay keenaysaa marka geedkii inuu tabar daraado oo dhibaato weyn uu u keeno. Dhibaatada noocaana waliba waxay aad u sii badan tahay geedka markii biyuhu ay ku yar yihiin oo biyo yaraan ay hayso dhibka uu u geysanaya waa kasii badan yahay. Sidoo kale wuxuu keenaa waxa la yiraahdo honeydew oo madow ah inuu ku reebo caleentii. Markuu caleentii madowgaas uu ku reebo wuxuu soo jiidanayaa cudurro kale oo dhibaato weyn u keenaya. Marka xaarkiisa saxarada uu ku reebayo geedkii dhibaatooyin kale iyo cayaanaad kale ayay soo jiidanaysaa ilaa geedkii ay ka qariso uu awoodi waayo inuu qorraxdii ka faa'iideysto caleentii. Haddii caleentii ay ka faa'iideysan wayso qorraxdiina waa dhibaato kale ayadiina. Marka dhibaatooyinka uu geysto aad ayuu u badan yahay. Wuxuu kaloo keenaa virusna wuu ku ridaa oo cudurka viruska la yiraahdana wuu qabadsiiyaa geedkii. Maxaa yeelay virusku asagu la socdaa ka bacda ayuu sii qabadsiinayaa. dalagyo fara badan ayuu wadamada Afrikaanka ah oo kale uu dhibaato weyn u geystaa. Waxaa ka mid ah yaanyada, barbarooniga, basbaaska iyo cabbage-ka ayaa ka mid ah dalagyada uu dhibaatada weyn u geysto. Viruska waliba uu keeno sida aan sheegnay aad ayuu wuxuu u keenaa dhibaato weyn inuu hoos u dhac uu ku sameeyo wax soo saarkii. Meelaha qaarna geedkii oo dhanba inuu sidaas uu ku dhinto viruska uu qabadsiiyo dartiis. Maxaa yeelay virusku kaligiis asaga geedkii cudurku ma ridi karo. Sida kaliya virusku uu kusoo geli karaa barbarooniga iyo yaanyadoo kale waa in cayaanaadkan aphid-ko kale iyo whiteflies-ko kale ay yimaadaan oo geedka ay nafaqada ka dhuuqaan markaas ayay viruskana ku reebayaan. Haddii marka infection uu ku dhaco geedkii intuu seedling-ka yahay oo uu yar yahay ama koritaanka uu bilaabo beeralayda waxaa ku dhici kara dhibaato ah 100% dalagoodii oo dhan inuu khasaaro. Marka sidaas darteed videogan waxaan awoodda ku saaraynaa oon muhiimadeeda u sheegaynaa in geedku markuu seedling-ka yahay oo uu yar yahay oo nursery-ga aad ku korinaysid markaas way marka ay muhiimka tahay in aad ka ilaaliso cayayaankan. Markii geedku uu gabangaba yahay oo ubaxii uu saaray haddii uu dhibaato qabadsiiyo haddii geedkii markaa saaba dhammaad ah. Laakiin bilowga hore geedkii intuu nursery-ga joogo haddii cudurkii uu ku dhaco meel fiican ma gaarayo 100% khasaare ah ayuu keenaa marar badan. Haddii uu whiteflies ku jiro geedahaaga ama nursery-ga ama kuwa bannaan ka baxay waxyaabo ku aqoon karta waxaa ka mid ah geedkii markii la jafo ama aad ku dhex socoto waxaa arkaysaa wax cadaan ah oo ka dhex yaacaya. Markii ay ka yaacaan wax yar kadibna geedka ayay ku soo noqonayaan. Marka geedka kilkil waxaad aragto wax cadka oo ka yaacaya waa whiteflies-ka. Laakiin dhibkooda ayaga ay sameeyaan waxa weeye oo beeralay badan aysan u arkinba caleenta qaybta hoose iyo laamaha hoose badana ayay cunaan. Xaggaas ayay degaan. Marka beeralay badan haddaysan fiirinayn oo aysan ka warqabin maba dareemayaanba inuu bahalkaani uu joogo. Ma dareemayaan ama haade caadi ayay u malaynayaan. Marka qaybta hoose ayay ku dhuntaan. Marka sidaas darteed dad badan maba dareemaanba inuu dhibkiisa uu kan yahay. Marka sida aan sheegnay seedling-ka kaliyana ma saameeyo ee wuxuu saameeyaa geedku inta uu yar yahay ilaa uu koriyo beerta uu joogo iyo xitaa marka ubaxa uu saarayo aad ayuu u saameeyaa. Marka maareyn ayaa u baahan tahay qaab aad isaga maareyn lahayd cayayaankan. Waxyaabaha marka ugu horeeya oo la rabo inaad isaga maareyso cayayaankan horta dabcan waa geed caafimaad qaba
inaad soo saarto iyo seedling caafimaad qaba inaad soo saarto. Seedling caafimaad qabana waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso see ku soo saaraa. Seedling caafimaad qaba marka waxyaabaha u soo saaraysid waxaa ka mid ah dabcan geed caafimaad qaba oo xoog leh oo nafaqo fiican leh wuu u dulqaadan karaa dhibaatada uu ku hayo ilaa nafaqadii ayuu ka dhuuqayaa. Laakiin geed cudur qaba, ciid aan nafaqo lahayn ku koraya, biyo fiican aan haysan oo dhibaatooyin badan ay haystaan waxba iskama difaaci karo. Laakiin geedka haddii uu intaasoo dhan uu haysto wuu isdifaaci karaa ilaa nafaqadii ayuu ka dhuuqayaa. Nafaqadiisii marka geedku asaa isu soo kabaya ilaa cayaankan uu meesha uu ka baxayo. haddii marka wax badan aad haysato wax waa lagaa qaadan karaa, laakiin haddaad wax yar haysato intii yartaa haddii lagaa qaato waa dhimanaysaa. marka dabcan sidaas darteed waa inaad geedka aad isku daydaa inaad geed caafimaad qaba aad soo saartid. waxaa laga yaabaa marka inaad isweydiisid geed caafimaad qaba sidee ku soo saari karaa. qaar badan hore ayaan uga soo hadalnay. waxyaabaha marka geedka caafimaad qabo lagu soo saaro waxaa ka mid ah inaad marka horeba ciid caafimaad qabta aad ku dugtid oo ku abuurtid oo ku habboon, waraab ku habboon inaad siiso. geedaha aadan hoos iska gelin, ciriiri aadan isaga dhigin ee intii ku habbooneed aad isku jirsiiso. dabcan faa'iidana kuma jirto inaad geedihii aad u kala fogeyso ooda booskaagii iyo biyihii iyo nafaqadii aada ka faa'iideysan. laakiin intii ku habbooneed ayaa isku jirsiinaysaa oo weliba aan uga hadalnay videoskii lasoo dhaafay. haramaha ama qashinka qof walba midka uu yaqaano ama weedska ayaa la dagaalamaysaa oo meesha ka saaraysaa. sidoo kale nafaqo ku habboon ama ha ahaato midda dabiiciga ama midaan dabiiciga ahayn, labadaba waa ka sheekaynay, ayaa ku shubaysaa haddii ilaahay yiraahdo. markaas waxay u badan tahay geed caafimaad qaba inaad hesho oo cayaanka yararka ama cudurrada yararka oo soo weerara iska difaaci kara. midda labaad oo aad isticmaali karto oo aad rabto inaad awoodda saarto sida aad isaga waardiye lahayd oo u maarayn lahayd cayayaankan waa inaad shabaq aad saartaa seedlingkii. maxaa yeelay ilan waa lacag fara badan oo qaali ah, marka dee kuma dhihi karo dabcan beertii oo dhan shabaq saar, taas waxa weeye maaragtay meelo badan kama suurtagoobayso. laakiin waxaad samayn kartaa 6 week ama 8 usbuuc oo uu ku korayo dalagii naasiriga uu ku korayo ayaa waxaa samayn kartaa shade net inta soo gadato oo aad 30 sentimitir oo kale camal dhulka u jirsiiso, ayaad dhinacyada inta ciidda uga duugto ayaad geedkiina kor uga qaado, ayaa waxaa samayn kartaa inaad kula dagaalanto inuusan cuni karin uusan usoo dhowaan. marka dabcan shabaq waxaa jira size ku habboon oo fiican oo kaa celi kara. cayaanadu waa kala duwan yihiin, qaar waxaa jira ayaxoo kale oo dulduleelo waaweyn haddii xataa uu leeyahay uu kaa celi karo. laakiin kan maadaama uu aad u yar yahay, duleelku waa inuu isku dhow yahay oo marakaneecadoo kale camal uu yaho uu aad u yar yahay uu celi karaa. markaas haddii marka naasiriga aad dul saarto lacag fara badan kuma baxayso, dhinacyada ayaad uga taagaysaa bahladaas waana ku celi kartaa. waxaa la isticmaalaa haddii ay rabtid oo kale camal oo rabtid inaad soo gadatid 50 ilaa 60 mesh ayaa la yiraahdaa netka noocaasa. marka wuxuu kaa celinayaa in seedlingkii uusan ku dhicin viruskii inta aad transplanting aada ku samayn ka hor inuusan ku dhicin ayaad ka faa'iideysaa haddii ilaahay yiraahdo. marka shabaqan geedo badan iyo meelo badan iyo qaabab fara badan oo kala duwan ayaa loo isticmaalaa, oo xilliyo waxaa jira xataa mararka qaar la saaro kaliya oo geedaha qaar la saaro. xilligaas marka waxaa la isku dayayaa intaas oo cayaanku uu kacsan yahay in la isaga waardiyo uusan seedlingkii kaa saamayn. kaartada saddexaad oo aad kula dagaalami karto oo aadka u muhiimka ah sahalka ahna inaad samayso waa inaad kala wareejisaa Solanaceae family waxa la yiraahdo geedaha la yiraahdo. waa inaad kala wareejisaa geedaha sida barbarooniga, yaanyada, basbaaska, eggplantiga midka loo yaqaano. geedahaas oo dhan waxay isku soo weeraraa whitefliesku. geedahaas oo dhan whitefliesku soo weeraraa. marka sidaas darteed waxaa abuuri kartaa oo ku kala wareeji kartaa galley oo kale. taas marka waxay keenaysaa in tiradiisii ilaa cuntadiisa yaraanaysa wuxuu geeduhu ku noolaaye inay hoos u dhacdo. cudurrado dhan ayaana lagula dagaalamaa kala wareejiskaas. xitaa waxaa kaloo la sameeyaa galleyda in laga dhigo difaac oo whiteflieska lagula dagaalamo. waxaa la sameeyaa beertii ayaa lagu soo wareejiyaa galleydii, qudaartiina sida barbarooniga oo kale iyo yaanyada oo kale dhexda ayaa lagu abuuraa. marka wuxuu samaynayaa wuxuu ku degayaa galleydii oo kumihiisii iyo meesha uu degayo yaanyadii waxay noqonaysaa galleydii waa lagu soo wareejiyaa. haddaa awoodid galleyda ayaa lagu soo wareejiyaa.
dabcan inkastoo ay fiican tahay oo lagu leeyahay maadaama laga yaabo inuu ayadii hadduu wax badan ku noolaado oo aad ugu bato inuu hadhow uu u yimaado qudaartaadii xoogaa markii aad joogtidba haddii aad geleyda aa aragto asagoo aad ugu badan waa laga buufiyaa si sokor uusan ugu dhismin laakiin mararka qaar geleyda bes ayaa lagu soo wareejiyaa qudaartii si uusan geleyda usoo dhaafin uusan fariskii uusan ugu reebin qudaarahaagii midda kale oo la samayn karo oo meelo badan adduunyadana laga isticmaalo waa waxa la yiraahdo fallow in la sameeyo oo qofka beeraleyda wuxuu samayn karaa sanad ayuu wax kale ku abuurayaa faruhuba ka qaadaya beertii ha iska soo baxaan haramihii iyo cawskii iyo wixii dhan iska soo baxaan beertii waa la nasinayaa waliba haddii ay yihiin beeraha aadka loo abuuri jiray markii la nasiyo insha Allah marka hoos dhac ayaa ku imaanaya midda shanaad waa inaad la dagaalantaa weedska la yiraahdo broadleaf oo beerta ka dhamaysa broadleafka iyo waxaa jira weeds caws ah kuwa cawska ma ka hadlaya halkan waxaan ka hadlayaa kuwa broadleafka oo caleemaha balbalaaran leh kuwaas waxay u noqonayaan hoy uu dego oo kumihii uu dhigo oo ay cunaan oo ay ku noolaadaan hadhowna ay beertaadii ku yimaadaan marka sidaas darteed waa inaad la dagaalantaa oo kuwaas aad meesha ka saartaa marka dabcan weeds oo dhan waa la dagaalamaysaa laakiin khaas ahaan haddii aadan rabin meelo ay kusii noolaadaan kuwan waa inaad si gooni ah ula dagaalantaa waxyaabaha kale oo aad samayn karto oo lagaa rabo oo muhiimka ah waxaa ka mid ah haddii kaba soo qaad bayaanyo hore aad abuurtay ama barbarooni hore aad abuurtay ka baabi'i meesha oo weliba haddii dabcan cudurku uu ku dhacay oo white fliesku ay hadda ka hor ku noolaayeen aad ayay muhiimba usii tahaba bacageli ka saar meesha gub ama duug oo ka fogey meeshii beertaada ka fogey marka taas muhiim ayay u tahay weliba haddii cudurku uu kusoo dhacay midda lixaad oo aad samayn kartaana waa inaad samaysataa waxa la yiraahdo sticky traps marka waa inaad soo qaadataa bac ama waraaq jaalle ah kabacdi waxaa mari kartaa petroleum jelly oo kale waxa la yiraahdo ama matoorka xataa oligadiisa oo kale ayaa mari kartaa haddii aadan bacda ah haysataa ama waraaqda ah haysataa aysan ahayn yellow ama jaalle aysan ahayn waa mari kartaa jaalle ayaa mari kartaa xitaa waxaa isticmaali kartaa kaarboodiyada caadiga alaabta ay ku timaado wixii aad rabtaa isticmaali kartaa adiga size 6 ilaa 15 centimeter ah ayaa isticmaali kartaa kabacdi kor ayaa kasoo laalaadinaysaa geedaha korkooda kalarkaas marka uu jecel yahay wuu soo raadsanayaa isaga dhan uu ku dhagayaa marka aad ayaa loo isticmaalaa taas greenhouse-yada weliba si khaas ah aad loogu isticmaalaa halkan greenhouse-kan haddaad fiirisid waa ujeedaa waxa bac jaalle ah saaran iyo kuwa buluug ah marka waxaa lagu dilaa cayaanada qaar ayaa buluuga jecel laakiin white flies-ka oo kale wuxuu jecel yahay yelowga fikraddan ayaan video ka samaynay oo la yiraahdo la soco dilna cayaanka adoo isticmaalaysid dabinada degdega leh marka dabcan haddaa awoodid videogaasna fiirso midda toddobaad oo la isticmaali karaana waa in la isticmaalaa sun dabiici ah iyo mid chemical ah labadaba waa isticmaali karaa oo way jiraan laakiin mid kasta oo aa isticmaasho midda dabiiciga ah iyo midda sunta ahba waxaa muhiim ah inaad geedaha qaybta hoose aa ka buufiso maxaa yeelay aad ayuu ugu dhuntaa meelaha hoose caleemaha hoose ayuu ku jiraa marka korka haddaa ka buufiso waxba ma gaarayaan laakiin wadamada Soomaaliya oo kale aad ma loo isticmaalaan rajaynayaa suntaas laakiin wadamada aadka u isticmaala mararka qaar waxaa dhacda in uu daawadii suntii aysan waxba ka qaadi weyso maxaa yeelay si joogto ah ayay u isticmaalaan marka sidaas darteed kaartooyinkan oo kale waa iska naqaanaa daawooyinka waddanka yaalla inay kala duwan yihiin meelo kala duwan ay ka yimaadaan dadka qaar inay ku wareeraan beeraleyda qaabka loo isticmaali lahaa ama sharaxaadoodii marka sidaas darteed fikradahan kale oo aan daawada sunta ah inaad soo isticmaasho aan u baahnayn haddii aad isticmaashid marar badan waa ka maarmaan beeraleyda adduunka waa ka maarmaan oo maba isticmaalaanba marka kaartooyinkan kale oo dabiiciga ah aad ayay muhiim u tahay in awoodda aad saartid laakiin dabcan waxaa jira daawooyin aad u fiican oo loo isticmaali karo oo white flies-ka lagula dagaalami karo aniga laftiga Soomaaliya hadda kor anoo jooga waan isticmaalay aad ayayna wax uga qabatay marka maadaama hadda waddanka aana joogin ma rabo daawo hebel inaa iraado soo gata marka laakiin daawooyin aad u fiican oo waxaa jira lagula dagaalami karo haddii marka aadan ka maarmin kuwaasna waa isticmaali kartaa laakiin sida aan niriba awoodda waxaa saartaa inaad ka maaratid kuwaas oo kaartooyinka kale aad isticmaashid sida inaad shabaq aad dul saartid oo kale silinkii xilliga ay ku korayeen maadaama booska ay ku korayaan oo boos kooban uu yahay waxaan rajaynayaa marka inaad videogan ka faa'iidaysateen intaan video kale ku kulmi doono beerasho wacan sidaas ayaa loo balana su'aalo dabcan wixii aad qabtiina ila soo wadaaga insha Allah waan kaga soo jawaabi doonaa waa mahadsantiin salaam calaykum